مسكين دور سنة يا أي أنك أنا عصدا أقل كيسي بقصة باق محلك الظهر كي الباب قوس صوت أقول حوير نجي مسكين كا وريك يا الله وحسيه وإحنا قسي وحي لهي نسي وضيقي مال غبين كهذا مغلي إنما دي يسيبوا أب ننكا مسكين كي الباب كتاجن سوق ليا إيه كان وأنا المسكين والله ولا سوق لي أقل كيف فرق على فريسي وضيقي بعيد هذا محل هاي لأني دور سنة يا نهو الرياضة نكون عليا وما حي أرجعتني نجي الله وحسيو يا واحد الله قسيه وإحنا قصي هيا بالك فريسي ورا بقضاء كان بريس بالله كان أو عني هيل بالله كان أو عني مرق بالله كان أو عبي شراب بالله كان أو عبي كلون بالله كان أو عني باستا الله كان أو عني دقاق بالله كان أو عني وحي أقلك عنت الله كان وده وحبك ما تجين واحد بأو عني لأن مسكين أباها كور وعلي وحي الله كان ألم يجدك أبوي حامد دافن بقى بيانا كهلي odaygii baa yidhi aabba anigana cunadayda ii keena buu odaygii ganacsadaha maalqabeenka ahaa ee aqalka iyo gawaadhida dhex taallay ee waxa ubada dhex jooga ilaahay uu siiyey asaga waxaa loo keenay odaygii bariis yaroo cad iyo cano dhanaan baa loo keenay wuxuu yidhi adeer idhegayso ninkii allah wax siiyow na siiya baa tidhi aqalka cuntadii lagu kariyo dhan waa lagu keeno waad cuntay anigii aqalka iska lahaaya waxaasoo hantiya ilaahay siiyeyna labadaa baan ka cunaa labadaa oo dhakhtarkayga ayaa igula taliyoo yidhi dhiikar baad leedahay wax dhanaan ha u dhowaan dhakhtarkaa igula taliyoo yidhi macaan baad leedahay wax macaan ha cunin dhakhtarkaygaa igu yidhi subag iyo dufan badan baad leedahay hilib iyo maraq ha u dhowaan haddaad doonto inaad maalmo adduunyada caafimaad ku sii joogtidna dhakhtarku wuxuu tale igu siiyey bariiskaa cad iyo caanaha dhanaan inaan ka cunee adiguna waxaa tiri wixii aqalkaa la keenona waad cuntee labadeenna kee baa ilaahay wax siiyey buu yidhi markaas ma ninka wax walliba cunay baa ilaahay wax siiyey mise miskiinka caanaha dhanaan iyo bariiska cad cunaaya kee allah hayna fahamsiiyo الله ينفهم نعمته انت هاي ستؤونك انت كما كان هيجن وعاد اديك واد هيستد مال قبانكم ما هيست مدحدو ما هيستا لان الهي با قيبيه عقله قيبيه وارزاقه الهي قيبيه واولاده قيبيه ودنمده قيبيه حتى ددك كلا دنمه فيعن dadka kala ubad fiican dadka kala arsaaqad badan dadka kala akhlaaq wanaagsan dadka kala aqli badan dadka kala aqoon badan انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا سيدة بني آدم كانوا كلا سريسين اقبلوا قولي هاي لكن وحاذوا قاتابا إلى هاي كلي هاي تفضيل كلا سريت الدنباء آخر بني آدم كلا سريسين تاسع فضل بدن با إلهي تاسع صحي أقادا marka wixii ilaahay adiga uu ku siiyay ilaahay ugu mahadnaq